dhagaystayaal ama daawadayaal waa barnaamijkii idaacadda codka qaxootiga Soomaaliyeed ee Sanca dalka Yemen. Waxa maantay aanu ka sheekaynaynaa ama aan rabno in aanu dadka Soomaaliyeed aan xasuusino siyaasiga caanka ah ee rugcadaaga ah ee la yiraahdo Cismaan Maxamed Jaalle. Cismaan Maxamed Jaalle inta badan Soomaalidu waxa suuragal ah in ay dhagaha kala socdaan laakiin aragti ahaan iyo maqal ahaan intaba aysan maqlin. si kastaba ha ahaato Cismaan Maxamed Jaalle wuxuu ka tirsanaa xukuumaddii militariga ee dawladdii burburtay ee Maxamed Siyaad Barre isaga oo markaasi soo kala maray jagooyin kala gedisan iyo waliba macnay mataqaanaayay xukuumo kala gedisan. Cismaan Maxamed Jaalle wuxuu hadda ku nool yahay waddanka Sacuudi Arabiya gaar ahaan magaalada Jidda. 1990kii markii burburkii Soomaaliya u dhacay ayaa Cismaan Maxamed Jaalle waxa maangeli siyaasadeed siiyay boqortooyada Sacuudi Arabiya halkaas ilaa iyo maanta uu ku nool yahay.